wuxuuna i dhahay hanti ayaan rabaa inaan iibiyo waxaana u baahanahay adiga saxiixaaga sidaas darteed waa inaan baxaa أرمي هذا مبحثة إن هذا وهل صح ربي دمن إن الترين كانوا وحوا بحياة لا بس عيبر ما كرنتي وتكجاريسة هذا يعني الصوت ديارنا يا دملا قرتي كل غداني نفتي ونفتا أدمي كوين أربين الشكوت يكون اللدم الدقيدة أنا نقم قفليتي يومتك نية لغتي وغداني نفتي ونفتا أدمي كوين أربين الشكوت يكون اللدم الدقيدة أنا نقم قفليتي يومتك نية لغتي مصعنا walaalka hooy addii goorma imaadine 25 sano ka hor dhima had see tahay oo fiicanahay runtii gabadhan waa saaxiibtay diyaa allah hoog salaam bustajada tariinka ayaan rabaa bajajal albriqsi ku guya soo raacay adna gal meel dhigo kaniinay wakhtigiis inaad ku cuntaa qannada inay deyso kuma sheegin mar hore waad ii sheegtay sidaas inta safar ku jirto waa laga yaabaa inay ku qabato okay haddii aan dhibaato ku geliyay iga raali noqo ayaan ku dhihi lahaa adigoo afarta hore ka maqan ayaad rabtaa soomaan bamba inaad ku laabato ugu dambeyn waxaa la gaaray xilligii aan labadayna ismac salaameyn lahayn wax walba wanaag ku bilowdo dhammaad ayay leeyihiin mahadsanid wax walba oo ii samaysoo ku mahadsantaha inaad yimaada alislaamaan wax walba waa firi marka labaad mumbai ayaan ku kulmi doonaa umlayna maya bangaloor xitaa waa isugu imaan karnaa waaya meel dhaxaan iskugu imaanayna xilliga adiga oo guurkaaga dhacay maya aniga ma guursanayo waad aflagaadaynaysaaya maya kuma aflagaadaynayo jacaylka shahaada ayaan ka wataa waad aflagaadaynaysaa waad aflagaadaynaysaa jacaylka PhD ayaan ka wataa jacaylka PhD ayaan ka wataa aflagaada sidee way iska caddahay aniga ku hortaagan waxaadna ilaadaa ilaa iyo hadda guur arrimihiis kama aanan fikirin sabab addii waan ku barya arrintan ciyaar iyo kaftan ha ka dhiganin waad aflagaadaynaysaa marwa khatar ayaa tahay 15 daqiiqo qof jacaylkiis ku soo ogaanaysaa sababtoo arrintaas shahaado PhD ayaan ka wataa waan ku takhasusaan ku dhahay sheekooyinkaas aniga ba sheekadaas waan ku soo takhasusay wax walba way iska cadiyeen bariya haddii sheekadan kaftan ha ka dhigin waad aflagaadaynaysaa maya had sida ugu dhaqsiya badan maad ku baxaysaa oo ku baryaa waxaan go'aansaday inaan guursado safarka dib maad u dhigatid
dambayntii wax walba bannaanka ayay imaadeen adigana runtii sida aad rabti waad heshay anigana wakhtigii aan soo beerdaraynayo dhan hadda faa'iidadiis waan helay naqaska ayaa igu dhegaayo sorry igaraa la noqo ilaa iyo hadda waxba kuma aanan soo bandhigan inaan ku soo bandhigta ay ahayd anigaba qaladkan waan leeyahay sababtoo kuma aana soo bandhigan dareenkayga maya labadeenaba qaladka ma lihin qaladka jacaylka ayaa iskale hal mar hab ma isiin kartaa markaan codsi maahan habta ee waa waajib labadeennana saaran Lucky! My dear Lucky! alla quruxsani badxay xidigtii haween inaad tahay ruux xurmiyo ishood lahanka ogsoon bulshada adiga ka xulan xaqiiqii hadal samaan ما أقول الله كلمة حفظي أنك سلام ديا marka hore gabadhiina inaa waxa uu sheeg malaba loo baxno dhaawac soo gaarin waa mid maskaxeed waxaa laga yaabaa intay suuxsan tahay inay soo caafimaadto laakiin waxaa loo baahan yahay kaliya inaad u duceysaan rooyidna rooyid maxaa ku dhacay doctor rooyid hal noocan oo kale haddii la galo maskaxda dhiig fara badan ayaa ku furma rooyidna arrintaas ayaa ku dhacday maskaxdiisa dhiig fara badan ayaa ku furmay xaaladdu hadda galane waa xaalad aad iyo aad u culus hadda maskaxdiisa way dhimatay intaas arrintaas oo jiifane annaga suuxta ma ku tiri karno waxaan ku tiri karnaa in awkaama ku jiro wiilkaas inta noloshiisa ka dhimanne sariir ayuu saarnaanayaa noloshiisa wax ay tarayso haba yaraatee maba lahaanba digtore hadda asi maba caafimaadayo miyaa haddii aan si caadi kula hadla adiga inuu soo caafimaadayo in oo soo caafimaadin mid aan sheegi karna annaga maba ahanba wiilkan waxaa laga yaabaa 3 bilood inaad ku qaadato ama 6 bilood waxaana kaloo laga yaabaa noloshiisa inta ka dhiman sariirtaa inuu saarnaado wiilkan waan ka xumahay aniga waxaa fiicnaa lahayd roohid sankabuur inay u qaadaan ceel badanaa maxaa ka fikiraysaa adiga haddii gabadhiisa soo naxday ee i weydiisa roohid aawo maxaan ugu jawaabaa ii sheeg bal aniga maxaan kaloo dhihi lahayn waxaan dhehnaa sankabuur ayaa loo qaaday meeshaas ayaan lagu daaweynayaa sidaana samayn gabadhayda ilmahan arrintaa inay qaadanayso war maxaa ku hadlaysaa adiga waxaa ila wanaagsan inaan ku dhaan roohid shil ayuu ku dhintay yaa haa aniga arrintaas si fiican ayaan uga fikirin waxaan kaloo ogaa gabadhayda roohid si xad dhaafa inay u jeceshahay
wax walba oo runta haddii aan u sheegna gabadheydana inta nolosheeda ka dhiman rohid ayay sugaysaa anigana midaan mau dul qaadan karo sababtoo waxaa laga yaabaa nolosheeda inta ka dhiman in ay iska dhadhicisa rohid inuu soo caafimaadayo hadduu soo caafimaadi waayo ka waran bal laakiin haddaan sidaan u fahansiino muddo gaaban ayay iska oynaysaa kadibna rohid way iloobaysaa dib dambe inuu soo xasuustana maba laga yaababa hadda waxaa nala wanaagsan sidaan inaan u sheegno sababtoo ah nolol cusub ayay dhisanaysaa gabadhida markaas haddii rohid si dhaqsina ku soo caafimaadana waaba sidii la rabay gabadhida oo ku daraynaa waan kula fahmay run ahaantii waxaa taa qof nasiib badan bal fiiri ducdaada waa lagu aqbalay haddane rohid isagoo caafimaad qaba ayuu kuu soo laabtay gabadheeda diyaa hadda mustaqbalkaaga wuxuu noqonayaa mid wanaagsan run ahaantii adigu waxaad moodday waxyaabahan dhacay oo dhan aabbaha inuu ka dambeeyo balse aabbaha kama dambeeyo waxaan ku dhihi lahay aabbaha iska cafi aabbaha qaladkaama gelin hadda labadiina waa inaad bannaan ku baxdaan waxyar soo sheekaysta xilliga guurkii inuu dhiclaan isku soo afgarta maxaad la fadhidaan socda diya hadda sida ii tahay marka aad maqashay aniga inaan dhintay adiga sideed isku xakamaysay ma waxaad isku dayda aniga inaad iska ilowdo haddii jawaabtaada haa ay tahay waxay u ballanaa wax walba ku faraxsan tahay inaan kuu sameeyo laakiin aniga waxaan ogahay in aadan ilowin diya si xadhaaf ayaan kuu jeclahay mana kaa maarmo saaxiibkani waa iska faraxsan yahay ma ogo jaceylkii hore inuu soo laabtay adduun iyo xaalka hallow ayay qurxuleedii sidee tahay teleefonkaaga waa damisay maxaa dhacay meeqa jar ayaan ku soo wacay ma taqaanaa haddii teleefonkaaga markaan uu dansanaan lahaa waxa suurtagal ahaan lahayd bumba inaan kugu imaado kadibna kow aan kaasi anigana sidaasaan xabsiga ku gal fiicnaan laheedaa taas inaad samayso waan kaaga mahad celin lahaa run ahaantii yaa ooyeysa sidee waxu jiraan maxaa dhacay ii sheeg aabbaaga ma kugu qayliy maya okay maxaa dhacay ii sheeg sidan ha iga aamusnaan waa ku baryaa ila hadal wax ii sheeg aadii waxa waaye rohid nolosha mar walba lama filaan ayay wadataa ay hadda maxaad go'aansatay oh sorry iga raalli noqoyaa anigaa ku dhahay haddii aad problem la kulanto qaybta macaamiisha soo wac qaybihii ugu khatarsanaa ayaan ku jirnaa ha ka ilowin subscribe-ka si aad ula socoto